xagee ayay ku dambeysay riyadii in la mideeyo ama midowga qaaradda Afrika waa fikradda loo yaqaano Pan-Africanism oo laga yaabo in badan oo idin ka mid ah inaad daawadayaal aad ku soo dhigateen iskuulada ama taariikhda aad ka akhriseen in ay jirtay muddo 200 sano ka badan fikrad ah in la mideeyo mar uun qaaradda Afrika oo ay noqoto hal dal ama ay u dhaqanto sidii hal dal siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo waliba dhinaca difaaca fikradda Pan-Africanism-ka haddii aynu taariikhdeeda dib ugu noqono waxa ay ka soo bilaabantay daawadayaal dalalka ama dalka Mareykanka oo dadkii madoobay halkaasi tagay markii ay xoroobeen fikrad ahaan kuwii warbaahinta ku jiray iyo waliba kuwii aqoonta lahaa ay fikraddaasi bilaabeen qarnigii 19aad fikraddan ayaa qarnigii 20aadna xilligii xorriyadda u soo dhaadhacday qaaradda madow ee Afrika iyadoo qaar ka mid ah hogaamiyaashii cusbaa ee xorriyaddu ay ku taamayeen in mar uun ay qaaradda Afrika ay midowdo ama hal dal noqoto fikraddaasi dadka ama madaxda ugu caansan waxaa ka mid ahaa madaxweynihii dalka Ghana Kwame Nkrumah oo isagu ku taamayay in mar uun qaaradda Afrika ay midowdo dalalka haatan jiraana ay noqdaan gobollo fikradda Kwame Nkrumah waxa ay ahayd in qaaradda Afrika dal ahaan ay oo ka kooban 54 dal ay midowdo marka ay noqoto hal dal oo federaal ah marka ku xigtana la yeesho ama la helo hal dhalasho oo kaliya marka taasi la helo dhalashadana la abuuro buu yiri hal suuq oo ka dhaxeeya qaaradda Afrika isla markaasina hal siyaasad oo arrimaha dibadda ah iyo waliba hal lacag ay yeelato qaaradda Afrika fikraddan ama 10kaasi fikradood ama 10ka qodob ee uu tilmaamay madaxweyne Kwame Nkrumah in laga midoobo waxa iyaduna ku jirtay ama ugu kamid ah qodobada in la helo maadaama uu sheegay in lacag la abuuro iyadana la helo baan dhexe oo ka dhaxeeya qaaradda Afrika ugu dambeynna in la sameeyo difaac midaysan oo qaaradda Afrika ay wada leedahay 10kaasi qodob ayaa Kwame Nkrumah uu isagu soo jeediyay in qaaradda Afrika ay samaysato haddaba midowgii qaaradda Afrika ee dalalku ay isugu tageen ayaa aan ku guuleysan ilaa hadda oo ay ka soo wareegtay xorriyaddii muddo 60 sano ah in ilaa hadda ay qaaraddu ay midowdo ama ay ku dhaqaaqdo wax tallaabo ah inkasta oo ay jiraan isku dayo in midowga laga soo bilaabo gobollo iyadoo oo gobolka galbeedka Afrika ee ECOWAS ay dalalkaasi ku midoobeen ururkaasi dhinaca waqooyiga Afrika oo dalalka jinsiyadda Carabta la wadaaga ay degan yihiin iyaguna ay leeyihiin urur dhinaca bariga Afrika ururka IGAD wali ma hana qaadin dhinaca kale laakiin bariga Afrika waxa isaguna jira suuqa xorta ah ee bulshada bariga Afrika oo isagu dhaqaale ahaan dalalkaasi ku midaysan ay doonayaan in ay tallaabooyin qaadaan iyaga oo ilaa haddana ku guuleystay isu socodka dhinaca badeecadaha iyo waliba dadka in ay fudaydiyaan waa midowga bulshada bariga Afrika ee dhawaan Soomaaliyana ay codsanaysay inay ku biirto koonfurta isagana waxa ka jira ururadaasi oo loogu talagalay in marka iyagu soo midoobaan bal si guud in la isugu iman karo la isweydiiyo laakiin wali fari kama qodna inay qaaradda Afrika midowdo midowga Afrika mar kale waxa ay sameeyeen hal passport oo ah passport midowga Afrika ah oo loogu talagalay in dadka Afrika ay dalalkooda ay ugu kala gudbaan balse kaasna ma noqon wali wax bulshada wada gaadha marka laga reebo shaqaalaha midowga Afrika haddaba weligaa daawade ma isweydiisay haddii qaaradda Afrika ay noqon lahayd dal oo ay midoobi lahaayeen 54kaasi dal halkee ayay geli lahayd aynu ka horeyno dhinaca bulshada ama dadka ku noole waxa ay geli lahayd kaalinta saddexaad ee dhinaca dalalka ugu dadka badan iyadoo ay ka horeyn lahaayeen China iyo India oo kaliya waxaana ku dhaqan qaaradda Afrika 1.2 bilyan oo qof aynu nimaadno dhinaca dhaqaalahana waxa ay noqon lahayd dalka afraad iyadoo ay ka horeyn lahaayeen oo kaliya dalalka China Mareykanka iyo India iyadoo oo dhaqaalaha qaaradda Afrika uu noqon lahaa markaasi 6.4 trilyan oo dollarka Mareykanka aan kugu sii daro qaaradda Afrika waxa ay hoy u tahay ama laga helaa 75% macdanta loo yaqaano platinum 20% aan idhaahdee dahabka adduunka iyo 55% diamondka adduunka oo dhan yaala haddaba sidee ay kula tahay
daawadayaal haddii qaaradda Afrika ay midowdo suurtagal ma tahayba fikradaasi oo marun ma dhici doontaa in qaaraddu ay isu tagaan 54kaasi dal ee kala qurumaha kala diimaha iyo kala midabka iyadoo oo aynu ognahayba in kuwii dhaqanka iyo diinta iyo waliba wax badan wadaagayay inay siyaasad ahaan ay kala huleeleen oo ay kala bixeen